maalin wanaagsan saaxiibadan hawada ka saaxiibnay waa markaan wararkii warbixinada ugu xiisaaya xamaasada badnaadaan oo kale ka daawo jirteen Israac Media waxaa kamid ah qarax xooggan oo hadda ka dhacay Muqdisho maxay ka wada hadleen wasiirka maaliyadda iyo guddiga maaliyadda baarlamaanka oo kulmay Axmed Madoobe amisom iyo dowladda federaalka Soomaaliya daacad kama ah dagaalka al-shabaab wararkaasi iyo warar kale oo xiiso badan ayaa diinheena hadda ay beedmo qaraxana ayaa jugtiisa inta badan laga maqlay degmooyinka gobolka Banaadir waxa uu ka dhacay xaafada ka tirsan degmada Waaberi ee gobolka Banaadir goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qarax uu ahaa mid gaari lagu xiray isla markaana uu ka dhacay xaafada Kooda Maaj ee degmada Waaberi wararka aan helayno ayaa waxa ay sheegayaan in uu qaraxa ku dhaawacmay in magaciisa lagu soo gaabiyay Cismaan Dheere oo wararka qaar ay sheegayaan in uu ka tirsanaa xafiiska ra'iisul wasaare Khayre madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in dhowr mar uu si kulul uga hadlay in la soo afjaro dagaalka ka dhanka al-shabaab oo sida uu sheegay daba dheeraaday waxa uu sheegay Axmed Madoobe in wax badan ay dowladda federaalka iyo amisom iyo beesha caalamka ay muddo 4 sano ka badan ku sugnaayeen in Jubbaland la xoreeyo hase yeeshee taasi ay dhicin isagoo la hadlay ciidamo lagu diyaariyay deegaanka Cabdalla Biroole ayuu sheegay in dowladda federaalka iyo amisom aysan daacad ka ahayn dagaalka hase yeeshee maamulka Jubbaland uu isku tashto si uu u qaado dagaal ka dhan ah al-shabaab wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta lagu wadaa in uu kulan la qaato xubnaha guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya guddiga maaliyadda ee golaha shacabka iyo wasiirada maaliyadda ayaa wax ay ka wada hadli doonaan sida ay ka yeeli lahaayeen miisaaniyadda sanadda 2019 oo la filayo in dhamaadka sanadkani la gudbiyo xildhibaanada baarlamaanka si ay u ansixiyaan maalin ka hor ayay ahayd markii uu dib u habeen lagu sameeyay guddiga maaliyadda ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya isla markaana uu dib habeen ku sameeyay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan